siyaasadda nabad iyo nolol ee villa Soomaaliya ayaa ka dambaysa in odayaashii baarlamaanka soo dhex fadhiyay dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay dhagaha loo laabo xusulkana loo dhigto sida Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Dalxa Fiqi iyo odayaal kale oo tartankii doorashada laga reebay halka taasi beddelkeedna ay kuraasta baarlamaanka ka soo buuxsameen xubnihii saraakiisha ee qeybaha ciidanka ka hor intaanay warbixinta guda galin daawade waxaanu ka codsanaynaa inaad muuqaalka share garayso bidkana leeg iyo sidoo kale follow noo dhahdo si aad qayb uga noqoto daawadayaasha ku xiran Sahan News. isbeddel siyaasadeed ayaa ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya marka la eego doorashada xubnaha kuraasta ee golaha shacabka inkastoo doorashadu aysan ahayn mid xor iyo xalaal ah balse ay tahay doorasho dadban hase ahaatee waxay wadataa jawigeeda siyaasadeed iyo sidoo kale duufaano ku dhufanaya qaar ka mid ah kuraastii jilbaweynta ee dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee 11aad ee dhismihiisa socda waxaa ka soo buuxsamay jiilal cusub oo saraakiishu ay ku jiraan halka taasi beddelkeed xusulka loo dhigtay oo afka ciidda loo daray odayaashii jilbaweynta ee baarlamaanka ku soo fadhisay kuraasta dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay laakiin muwaadin wali ma isweydiisay su'aasha ah cidda ka dambaysa siyaasaddan haddii ay tahay dhanka villa Soomaaliya ama jamaahiirta mucaaradka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay hotelka Jasiira ee magaalada Muqdisho siyaasadda Soomaaliya oo sida kubadii oo kale cad iyo madow ah isla markaana ah mid dhinac isku rogta ayaa la timid waji cusub odayaal badan oo siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jiray dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay kuraasta baarlamaankana ku fadhiyay ayaa intooda badan baarlamaankii ka mid noqon waayay doorashada iminka socota halka qaar kale oo harsanna wadnaha ay farta ku haystaan tani waxaa ka dambeeya sida aanu xogta ku helnay hogaamiyaasha dawlad goboleedyada goobaha ugu badan ay tani ka dhacdana waxaa ka mid ah dawlad goboleedyada kale ah Koonfur Galbeed, Galmudug iyo sidoo kale kuraasta taala dhinaca dawlad goboleedka Hiirshabeelle haba ugu badnaadeen kuraasta taala dhanka Koonfur Galbeed oo tirada odayaasha ee laga saaray baarlamaanka ilaa iyo 5 ay kor u dhaafayso hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isagu u sharaxan xilka gudoomiyaha baarlamaanka 11aad ayaa ciyaaraya qorshe siyaasadeed cajiib ah isaga oo meesha ka saaraya odayaashii baarlamaanka ku soo jirtay dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay ee deegaan doorashadu ahayd deegaanada maamulka Koonfur Galbeed si aanay culays ugu keenin oo aysan xilka kula tartamin Laftagareen oo ka mid ah saaxiibada waaweyn ee gacanta midig ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhisanaya xildhibaano marka uu ku kalsoonaan karo sidaas oo kale hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo isaguna la hadalhayo inuu noqon karo ra'iisul wasaaraha soo socda ee dalka washaxda siyaasadeed ee qeexaysa in madaxweyne Farmaajo uu talada dalka dib ugu soo laabto Laftagareen iyo Qoorqoorna kala noqdaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha soo socda Qoorqoor waxa uu ka shaqeynayaa isaga oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho kuraasta baarlamaanka ee ka imaanaysa Galmudug inay noqdaan kuwa loo wada tiiriyo dhanka villada balse waxa aanay muuqanin doorka qoliyaha siyaasiyiinta mucaaradka marka la eego siday wax kaga socdaan gobolada dalka ee doorashada xubnaha kuraasta golaha shacabka wadin beejka Legnosar oo soo follow gareey hadii tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay Sahan News oo soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Waa inoo qaybaha kale wararka soo socda daawadayaal nabadgelyo.